الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Soomaali meel kasto ay joogto waan salaamayaa. Salaan kadib waxaan rabaa caaw inaan ka hadlo oon idin sheego oon idin fahamsiiyo ujeedada ka dambeysay dagaalka haddeertaan laga soo sheegay gobolada Nugaal iyo Bari. Waxay leeyahay kaga taabtaraba ilaan Soomaali mar walbo waxa laga dhaadhiciyaa in laga shaqeynayo danaheedii يعني هجامي كوحيداً nimankan maamul goboleedyada sheegtay yani muxuu ahaa goboladaas ka taliyo iyo kuwa kale horay ma arkin muxuu ahaa u joogi jirayba hal ujeedo ay ka midaysan yihiin baa jirto. Ujeedadaas oo ah inay fushidaan danahoodii gaarka ah. Si fiican ii maqla in ay fushidaan danahoodii gaarka ah. Al-Shabaab waa la keenay Bari iyo Nugaal waa loo yeertay waxaan u yeertay maamulka Cabdiweli Gaas baa u yeertay ayagii baa dalbaday sababtoo ah Al-Shabaab meel walbo soo galo waa niman argagixiso ah la dagaalanka argagixisadana yani muxuu ahaa budget baa lagu qaataa dhaqaalaha lagu qaataa. Cabdiweli Gaas dhaqaalihiisii baa isbixin waayay dawladdii uu dhisay baa yani muxuu ahaa masheer la-aan ku dhacday waxaa soo food saartay dhaqaale xumo economigii baa hoos maray sidaas daraaddeed wuxuu dalbaday in Al-Shabaab dalka la keeno. Al-Shabaab iyo macal argagixiso ama Daacish magaca doonta ugu yeer lama rabo in la baabi'iyo. waxa waa wixii Xasan Sheekh Maxamuud ku taajiray Shariif Sheekh Axmed baa ku taajiray Cabdullaahi Yuusuf waxba kama sheegayno sababtoo ah wuxuu ahaa nin yani wuxuu sheegay ka run sheegu ahaa. waxa waaye nimanka Al-Shabaab la yiraahdo waa wakiil Ethiopian oo yani muxuu ahaa dawladda Ameerikaanka yani muxuu ahaa fan bay ku bixisaa dhaqaale fara badan baa meesha sayida ku baxo. nimankan Al-Shabaab la yiraahdo biyaha caalamiga ay soo mareen dooman baa la soo siiyay hub baa la soo siiyay dhaqaale fiican baa la soo siiyay waxa loo soo diray Puntland ilaa iyo nimankan yani muxuu ahaa maamulka haddeertaan oo Cabdiweli Gaas ee goboladan Bari iyo Nugaal iyo muxuu ahaa ilaa iyo inay ugu sii gudbaan goboladan ma arkin muxuu ahaa waqooyi galbeed inay u sii gudbaan ayaa go'aankooda u yahay sababtoo ah dhaqaale fara badan baa laga helay. Amisom baa ku taajirtay nimanka sheegto oo hadda xamar joogo Ethiopian baa ku taajiray waxa ku taajiray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Damul Jadiid nimanka la yiraahdo Dulmul Jadiid baa u bixiyay way ku taajireen. Puntland nimankan markay imaadeen Cabdiweli Gaas wuxuu si degdeg ah u tagay Ethiopia contract buu soo saxiixay oo ah in dhaqaalaha loo soo marsiyo dalka Ethiopia malaayiin dollars. warbixin buu iska geeyay feedback buu sameeyay declaration buu sameeyay wuxuu sheegay in waddanka argagixiso ku soo duushay Daacish inay bad iyo bari bay ugu soo duushay sidaas daraaddeedii waxaa la rabaa in dhaqaalo meesha iyada budget laga qaato. laakiin shacabka Soomaalida ku nool Bari iyo Nugaal waxaan rabaa inaan idin sheego ha isku waalin arrintaas arrin la soo qorsheeyay raggaas ayaga waa la dalbaday waxaana dalbaday ninkan madaxweynaha idin ah Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalbaday waanu ognahay. tusaale waxa idinku filan nimankii ka soo baxay koonfurta Soomaaliya oo yani badana soo maray badda waxaa joogo ciidamo yani muxuu ahaa oo dawladdan hadda fadhiidka Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ciidamo ayaa u jooga badda biyaha caalamiga oo halkaas u fadhiya jiro. waxaa joogo gaashaanbuurta NATO ayaa degan Ameerikaan baa degan dawlado fara badan baa degan. waxaa marka la rabaa
يعني ولا صوت نفسي ولا صوت قلبي هالكاس أي دون تدقصوا حرتين وحارب أمد الصوماليين أنا أشيله لمن دخاتير با وحي كنت المامين الصومالي أغلق إنه يحي تضباطني يشن بقول كيبا أغلق قفك الصوماليات بقول كيبا تضباطني يشن كلي إنه يحي لمن دخاتير وهذا ود ما هذا رجالبات خدنا نشوفنه أيها هري وشيء أنا ده سو حقيق وأن أيده يا مانتيتو قال إن كان كودوجي واحد بدن بان استوسني رجي دخاتير تا هذا الكاسجري إيه شو وضع كان يعني هذا نجوجنه يعني وحواية رج أو يعني محوها إن هذا وهلر علم يعني محوها نفسي يماركينه سينكولوجي كلاهم باي وبارين وضع الصوماليات سببته أمد إلهي سبحانه وتعالى قل أنت أصلك سيء هل أفكو ولا هذا الشر هل دين ولا له هل دل كدحيو لباتن على سرتي يا مدول بولاي يعني قام مدحوينا مدول بو ربين روق أصلون ديو مدول بينو إذا قارهانات دستو مدول بينو علن قارهانات سميستو مدول بو وحو أسيق قبطينو توقتو يا midda sayida waxay noo dhaantaa waqtigii dagaaladii sokeeye ayaa noo dhaanto in nimankan yaani dalkan intuu gacanta ka bixi lahaa markii la slaayo oo la sbaabiyo waxa imaanaysa wax la yiraahdo maxaa noo dan ah raawi waxay kuma amaada maynin dan ma garad ummadan Soomaaliyeed dhigeedii maalin walba la xalaashiray oo la baabiinayo waxaan rabaa inaan u sheego warheede dalkan rag yaro kooban oo 13 nin baa u soo halgantay SYL baa la dhihi jiray heerkan yani muxuu heerkii aan gaarnay bay soo gaarsiiyeen xurriyad bayna gaarsiiyeen dalkeeni bay noo dhiseen xurriyadeeni calankeeni bay soo maarkin muxuu ahaa caalamka yani muxuu ahaa inaan xur noqono ay u horseedeen maxaana loogu waayay intaasoo malaayiin baan nahay 9 milyan oo Soomaaliyeed ummadda markay ilbaxnimo ay u socotay maxaa dib noo celiyay anaga maxaa dib noo celiyay maxaana loogu waayay qof wadani ah maxaana loogu waayay qof yani muxuu ahaa dalkan iyo dadkiisa u damqado Soomaali waxaan leeyahay marxaladda tan maarkino waa waxaan horay aan maarkino muxuu ahaa waxaan filaynay waa in Soomaaliya gees min gees ay argagixisadu yani muxuu lagu soo dhaweeyo gacmo furan oo hub loo siiyo dhaqaalaha loo diro waa waxaan sugaynay waa Puntland nimankan la magac baxay ayaga hogaaminaya nimankan al-shabaab yiraahdo ku jiro suuji iyo maarkano bandarbayl nimanka joogo ayaga hogaamiyo ma garad shacabka laakiin meesha ida ku baaba'ay waa shacabka Soomaaliyeed mid raali ka noqonayna ma aha al-shabaab waxaan leeyahay ama nimankan Daesh la baxay waxaan leeyahay Soomaali baa leh damiirtii dadnimada wili dad yani muxuu ahaa ruux ama bani aadam waa wili jirkeena waa ku jirtaa xisbiga danguudi daryeel shacab wuxuu si degdeg ah digniinka dambeys u jeedinaya nimanka yani muxuu ahaa shabaab inay degdeg ay ugu baxaan dalka Soomaaliyeed ciidu Soomaaliyeed si degdeg ay ugu baxaan waxaan rabaa inaan u sheego Ethiopia adaa wato al-shabaab adiga wato adigana ka mas'uula adiga u soo horseeday inay soo gasho meeshayda amisom afkeeda waxaan ka haynaa askartoodii oo qaar kamid ah in Soomaaliya dagaalka Ilaahay naga ma joojiyo si dhaqaalaha ay noogu istaagin horey bay u yiraahdeen doqontu waxa la yiri haday yani muxuu ahaa ay baarkino inaad wax dareensaan rabto u shaqteeda ku dhuf haday dareemaydo korkeeda ku dhufaaliyo ma garad waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego barnaamij laga soo shaqeeyay Puntland ayada u yeeratay kuwan hadda Soomaaliland sheegtana sidoo kale way u yeeran rabaan waxa la isla ogaaday in dhaqaale fara badan laga helay meesha ayada lacag fara badan in lagu abuurtay oo Xasan Gurguurta u dhistay caalamka wixii guri ku yaali meel walba inuu guri ka dhistay sidaas daraadeed kooxda la soo diray Abdul Gaas baa dalbaday. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.